sheekada u dambaysa oo ay kaga haya kooxda Chelsea ee la xiriirta suuqa kala iibsiga waxa weeyaan Antonio Rudiger waxaa la leeyahay qandaraas oo cusub in Chelsea la furto ayay doonayaan balse asiga uu ka caga jiidaya oo wuxuu doonayaa inuu ku biiro kooxda Bayern Munich. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسر ميل الباجوك تسي والبادي مقليسيد كسر هذا المقال عصب انت مقال قدا وقلن وانك عسلنا سبسكرايب لنا نوسارتي هذا نوع عصبتا هذا هوري لجوكتي وكما سنتها لجوكستا كسر هذا عاوة وحالين هيا أفر شيكو أو معقولة لحرير سوق الكليبسيجا كوحدة جلسي معقول قلتها هاي إني دعان أفرتني سيدي ساعة سوسعتا انت مقالك gudaha u galin magacaygu waa Cabdul Caagane channelka daawanaysid waa Caagane Football Channel la nagu cusub tahay oo hore aan loo joogin oo na soo booqatay oo ku maasantaa booqashadaada ee subscribe noo taabo like-taada waa muhiim hadaad hore ila joogtay oo ku maasan tahay la joogistaada iyo dhiirigelintaada sii share garay oo asxaabtaada la wadaag saan u helno asxaab qiimo badan sida adigoo kale ku soo dhawaada muuqaal cusub. saan hore kugu sheegay afar sheeko oo macquul gal ah inay dhacaan 48 saac soo socota Chelsea ay la xiriiraan intaba kooxda Chelsea maadaama ay ku guuleysteen Champions League waxay ka wataan lacag aad iyo aad u waalan. Chelsea ayaa Achraf Hakimi ay ka dhabeeyeen oo dalabkoodii u dambeeyay ay ka gudbiyeen kadib PSG oo adkaysi waysay Chelsea dalabaadka iyo xiriirka joogtada ah ee la leeyihiin kooxda Inter Milan. PSG ayaa iskaga carartay oo markaan PSG waxay u egtahay inay dalbadeen ciyaaryahan ka tirsan kooxda Tottenham ee ka ciyaaro Redberg waa Serge Aurier horey waxa uu lahaa kooxda PSG waxaa la leeyahay Serge Aurier waxay midoobi doonaan macalinkiisii hore ee Pochettino waxay PSG ku dalbadeen 20 milyan waxay ka dhigan tahay kooxda Chelsea ayaa kaliya ku noqotay Achraf Hakimi oo waxay ka dhigan tahay Achraf Hakimi inay Chelsea kaliya ku noqotay Chelsea middaasi waa u faa'iido markaan waxaan dhihi karnaa Achraf Hakimi welcome to Chelsea maadaama Chelsea kaliya ay ku noqotay Achraf Hakimi dawlisti Inter Milan Chelsea kaliya ka dhageysanaysa dalabaadkeeda waxaa ku jirnaa wada sheekadii Inter Milan iyo Chelsea ka dhaxaysay Inter Milan ayaa dooqeeda ciyaaraysa markaan Chelsea ayay u arkaan inay midba mid maalin walba lala xiriirinayo markii hore waxaa lala xiriirinayay Matteo Kovacic, Tammy Abraham ama Emerson midkood inay ka mid noqon doono dalabka Achraf Hakimi saacadii u dambeeyay wararkii laga qoray Achraf Hakimi ee kooxda Chelsea lala xiriirinayay waxaa la leeyahay waxaa ka mid noqon doono oo dalabkiisa ka qayb qaadan doono Marco Alonso kadib Inter Milan markay dalbatay Marco Alonso inay Chelsea soo wareejiyaan haddii u baahan yihiin Achraf Hakimi ee lacagna ku soo daraan intaas waxaa ku dhan Achraf Hakimi waxaan leenahay mar dhow wuxuu noqon doonaa 48 saac soo socoto Chelsea anagana waxaan leenahay Achraf Hakimi ku soo dhawaaw kooxda Chelsea waayahay sheekada labaad waan gudaha u galno maalmahan maadaama ku waalana Talyaaniga ee Chelsea suuqeeda ugu weyn sanadkan uu yahay bartilmaameedkooda Talyaaniga waddanka Talyaaniga ee sare Chelsea ayaa markaa waxaa laga doonayaa Master Kepa waxaa la leeyahay waxaa la xiriirinayaa kooxda Lazio ayaa tiri waxaan u baahanahay goolayaha waddanka Spain ee Kepa oo diloobay kursiga keedka sidii sanadkii hore la soo dhaafodan sidoo kursiga keedka u fadhiyay wuxuu ku seegay waddankiisa Euro lama wacan oo sanadkan kama aysan qayb qaadanayo balse waxaa la leeyahay Lazio si aan u badbaadino oo ciyaaryahankaasi kursiga keedka ugu soo kaco u ciyaaro ama Janis ugu helo World Cup ka dhici doono 2020 waddanka Qatar. Lazio ayaa leh Kepa waxaan bixin karnaa mushaarkiisa half haddii Chelsea nagu soo wareejinayaan waayo Chelsea ayuu ka qaataa lacag waalan aniga ahaan Chelsea sanadkan Janis uma helayo ama uma malaynayo Kepa inuu Janis ka heli doono waayo waxaa jooga Edouard Mendy oo ku guuleystay Champions League uma malaynayo ninkaas inuu laga qaadi doono booska number 1 bal aniga ahaan Kepa waxaa fiicnaan lahayd inuu u wareego kooxda Lazio siduu u soo qaato oo Janis u helo asigoo wanaagsan oo loo soo laabto balse ma qabo in la iibiyo ninkaasi taageer adiga maxay kula tahay waayahay si aan hore idinku sheegay afar sheeko waaweyn ayaa idinkaga haya kooxda Chelsea wararka Chelsea iska soo daba dhacayaan markani waa Olivier Giroud waxaa la leeyahay 48 saac soo socoto waxaa macquul galay inuu noqdo Giroud ciyaaryahan ka tirsan kooxda Milan markani maahan Inter Milan waa AC Milan Giroud ayaa la leeyahay Chelsea waxaa ay dalab ka gudbiyeen kooxda AC Milan Giroud naftigiisana wuxuu u baahan yahay siduu u ciyaaro World Cup ka soo socda sidoo boos joogta ugu helo oo doonaya inuu ka ciyaaro waddanka Talyaaniga gaar ahaan kooxda danaynaysa ee AC Milan Giroud Europe ama koobka Europe iyo Europa League ama Champions League waa weeteen sidoo u kacsanaa Giroud marnaba asigoo ku guuleystay goolkii ugu qurxanaa ee Chelsea sanadkan
goolkaasi oo ahaa goolkii uu ka dhaliyey kooxda Atletico Madrid ee Champions League lugtii hore. sheekada u dambaysa oo ay kaga haya kooxda Chelsea ee la xiriirta suuqa kala iibsiga waxa weeyaan Antonio Rudiger. waxaa la leeyahay qandaraas oo cusub in Chelsea la furto ayay doonayeen, balse asiga uu ka caga jeedaya oo wuxuu doonayaa inuu ku biiro kooxda Bayern Munich. waxaa laga yaabaa inuu u wareego kooxda Bayern Munich maadaama iska iibiyeen Alaba, asigoo u arko waddanka Jarmalka iyo meeshaasna u yaalaan xushmad badan Chelsea maadaama sanadkii hore haaf dhan uusan ciyaarin ay barbaran ka qabay kooxda Chelsea. waxaa la leeyahay Antonio Rudiger kuma faraxsano kooxda Chelsea walow asiga kula guuleystay Champions League, haddana wuxuu doonayaa inuu iskaga dhaqaaqo meesha uu ku biiro kooxda Bayern Munich. daawada adiga maxay kula tahay sanadkan Chelsea halkay u baahan tahay inay iska dhisaan? weli waxaa meesha loo taagan waa Haaland iyo Lukaku ama Harry Kane. saddexda midkood ayay Chelsea ku guuleysan doontaa ama ay soo qaadan doonaan inay noqdaan number 9-ka sanadkan. daawada adiga maxaa jeclaan lahayd kooxda Chelsea inay soo siixdaan sanadkan number 9 ahaan? aniga ahaan dooqayga haddaan ciyaaro oo aan marka hore iska bilaabo waxaan jeclaan lahaa inaan ka dhigano strikerka ugu horeeyay kooxda Chelsea sanadkaas soo qaadanayso Haaland ayaan doonayaa, waayo waa nin yar oo la qabsan karo kooxdan yar ee hadda la aasaasay. haddii aan Haaland helno wuxuu noqon doonaa mustaqbal fog ee Chelsea number 9 oo waxay noqon doonaa Chelsea koox laga cabsado haddii ay isku helaan Haaland iyo Hakimi. adiga ahaan Chelsea maxaa u jeclaan lahayd ama suuqa kala iibsiga inay kasoo iibsadaan yaase jeclaan lahayd Chelsea in laga diro? nalowda komitigaada waa noo muhiim saan ugu soo sheekayno sheekada labaad ama videoga labaad aan halkaas soo gelin doono. intaasaa kusoo gabagabeyna maantay wararkii la xiriiray kooxda Chelsea waa intii ugu waaweynaa ee saacadihii u dambeeyay laga qoray kooxda Chelsea. daawade adiga maxaas leedahay kooxda Chelsea sanadkan halkayse tegi doontaa ma ku guuleysan doontaa Premier League? waan kula wadaagi doonaa wax waliba soo dhaco insha Allah. halkan ayaa ka daawan doontaa nagu saacid laagtaada iyo commenti inaad ka bixisid kadibna asxaabtaada la sheergaraysid saan u helno asxaab qiimo badan sida adigoo